من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. waxaa weeye waa mahadsan yihiin ninkii oo maaragtay oo cumar iyo raggii odayaasha ahaa ee reerka ahaa ee maanta inugu marti qaaday tuuladii aynu u niqiinay Fuuma oo haddana Barda Salaama loo bixiyey waxaa weeye anoo codkii beesha harti ku hadlaaya waa soo dhawaynaynaa meesha inaan soo degno waxaan idinka codsanaynaa guddi inaad samaysaan dadka maaragtay dhulka maaragtay u cabira naqshadeeya ayaanu maaragtay idinka rabnaa haddii alla yidhaaho wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. hadalkaygii baa haray kolleyba aniga waxaa noqonayaa ninka guddoomiyaha dhulkaan qaybin lahaa oo naqshadeyn lahaa maadaama aan ahay injineerkii guddigana waxaan rabaa in madax liiga dhigo marka haddii ilaah yidhaahdo si wanaagsan ayay hawshaa ku dhammaanaysaa. odayaashii iga horreeyay baa hadalka dhameeyey. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa oo u soo dhawaynhayaa nimankii hawshaan ka shaqeeyey oo masaajidka dhisay oo meeshaan hawsha ka qabtay oo hadda odayaalka ay ka kow yihiin iga horreeyadoo ka hadlay oo deegaankan deganaa. aniga horta Fuuma maanta ay ugu horreysa ka hor ma imaan maantana aad iyo aad baan ugu bogay. waa meel deegaan ku habboon waa meel degmo ku habboon waa meel cajiib ah oo buuraheeda iyo markaad eegtid aad iyo aad u wanaagsan. anigu waxaan leeyahay oo idinku guubaabinayaa oo aan soo dhawaynayaa in la soo dego in injineero la keeno wadooyin loo sameeyo. haddii nin walba iska dego oo meel dego way xumaanaysaa. waxaan haddana anigu soo jeedinayaa ama dibadda la jooga ama gudaha la jooga in magaaladan la soo dego la cabmiro waayo waa meel si kasto haddaad fiiriso Kismaayo waa ka fiican waa ka qurux badanta buuraheeda iyo markaad aragtid iyo waxa ku gadaaman. marka aad iyo aad waxaan ugu mahadinayaa nimankii intay hawshaan qabteen masaajidka dhiseen Fuuma dhisay haddana maantay oo jimcaha tahay oo ii tahay nagu soo dhaweeyey nagu marti qaaday. ilaahay mahadi waa ku mahadcelinaynaa waana u mahadinaynaa waana mahadsantiin baanu leenahay. dadka maanta noo yeeray amba meesha fadhiya odayaasha iyo maarta nabadoonyada iyo salaadiinta iyo cuqaasha iyo dhalinyarada iyo dumarka kulli waa salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. haasatan waxaan ku celiyaa dadka meesha noogu yeeray oo sida horeba loo sheegay martiqaadka fiican ugu sameeyey majaalista fiican oo qalqaaliyey iyaguna waa mahadsan yihiin. allah ka ajir siiyo. warku waxaa waaye adigu hebel ma hadlin ee ha hadliyo in loo hadlo hadda ma ahin waa la hadlay wixii muhiimadda ahay waa noo sheegay. magaaladan sida hadda aadanba sheegay nabadoonka aniga hadda ma imaan hadda ka hor ma imaan maanta ay koobaad bal Fuuma bal waana nalonka wacay waana soo arkaa aan ku imid. marka ilaahay khayr ha siiyo waa meel la jeclaystay
بيت إلهي آلقى بالله أسيقان كجرنا بارك خير الله سيو ديغان كاسنا واسو دوي هنا ninkan meel degi raba hadda warkan wax ku dhiifaa degi ma kii degi rabo degaan raba inuu dego waa degaaya ilaahay hoo sakhiro dadku waxa waa meesha dawdigu wax kasta laga helaa asiga waxa waaba nin degayo nin maaratay wixii deganaayo soo caawiyay amba xoolaha ku caawiyo amba maaratay xooga ku caawiyo amba talaha ku caawiyo hadda ninkii soo dega wax weyn u qabtay على من لا نبي بعده magacayga waxa Umar Axmed Nuur Xaaji Warsame waxaan ahay qurbo joogta reer Jubbooyinka kamida reer Jubbada Hoose ama Jubbooyinka kamida waxaan deganahay dalka Canada xaasatan gobolka Alberta magaalada Edmonton baan deganahay aan ka imaaday waxaan ahay sidoo odayaashii hore u sheegeen deegaankan hadda aan Bandar Salaama markii asaasay masaajidka iyo barkada iyo madrasada iyo dadka inta hadda qoys soo degan alxamdulillah juhdiga waxaan soo bilownay 2007 hadda 2018 aan marayno alxamdulillah waa ku guuleysanay maantana waad arkayseen waxa la dhagax dhigay deegaankii inay noqoto deegaan rasmi ah oo la dhagax dhigay odayaashii aqoon-yahanadii injineeradii dadka ay reer Jubbada Hoose reer Kismaayo ay dhagax dhigeen ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa guul juhdi badan oo soo bixinay dadaal badan oo sameeynay sabir badan oo soo sabirnay talooyin badan oo sameeynay marjac badan oo aan ula noqonay maanta waxaan ku guuleysanay in loo dhagax dhigo Bandar Salaama ilaahay baa mahad leh Bandar Salaama waa u jeedaan quruxdeeda iyo wanaageeda dhulka waa maanta waa barwaaqo waa doog dhulka waa isla badii wada dhulkii barigana waa kana dhulkii geedihii iyo cooskii dhinaca buuraleydii way xoolihii iyo badii iyo xoolihii iyo buuraha gaashooda hadii beero loo baahdo waa runtii deegaan rasmi ah Soomaaliya u maleyn maayo meelo la mid ah inay jirto meelaha dhulka sidaan u quruxsan Kismaayo waa ka quruxsan tahay magaaladan sidoo hore loo sheegay walaalayaal waxaan ku soo dhaweynaynaa dadka meeshaan wanaageeda walba waa aragtaa soo dhawaadaan leenahay dalka quruxdiisa waad u jeedaan dalka wanaagiisa nabad baa taal alxamdulillah waaqaya taal caafimaad baa yaal alxamdulillah waqtiyada ugu qurux badan baa hadda ku jira bishii waxaan ku jirnaa hadda June oo waqtiga roobka way waliba waxaan sugaynaa roob badan oo sida hadda dhulkan xeebaha waxa ka bilowdo roob dhaaxaga oo daa ilaa iyo maartay June ilaa iyo July August daa jira roobkaas insha Allah waa sugaynaa oo xagaaga ah maantana alxamdulillah waa ciidnay bishii Shawaal baa koow ah dhulkii maanta alxamdulillah Kismaayo maanta waa laga yimaaday wax ku haray ma jirin waad u jeedeen dadkii boqolaal baa timid ilaa kutumay baa baa noo imaaday ilaahay mahadi marka alxamdulillah intaasaan rabo warbixinta dadkii ku soo dhawaaday waliba qaasatan dadkii hawsha aan nala waday oo reer Bandar Salaama 1 iyo 2 iyo hoosada godo iyo gudiga fulinta maanta waa u jeedaan farxadda reereenta iyo wixii aan ku haminaynay iyo wixii wanaaga waa u jeedaan maanta